Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada koorskeena Adobe Illustrator CC 2015. Cashirkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay waxaa jira waxyaabo qaar ee qofka graphic designer ka caawiyo. Waxaa ka mid ah fontska fararka qaar marka uu qorayo waxaa loo baahan yahay inuu kasoo degso internetka si uu far qurxoon u soo saaro. Sidoo kale waxyaabaha caawiyo qofka graphic designer-ka waxaa ka mid ah inuu image quality leh ama sawir quality-giisa uu high yahay inuu meesha soo saaro si uu graphic designer-ka u soo muuqdo. waxyaabaha kala caawiyo waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano mock-up oo aan cashar hore ugu soo sharaxnay. micnaheeda mock-up-na wuxuu yahay product-iga ama project-iga aad samaysay wax reality camal ka dhigayo. haddaad rabto certificate ama aad rabto brochure aad samayso, brochure-ka u muuqdo sidii asigoo la daawacayo kale, waxyaabaha ka caawinaya ayaa waxaa loo yaqaanaa mock-up. marka maanta waxaan rabaa 4 website oo qofka graphic designer-ka caawiya. 4 website qofka uu u baahan yahay waxyaabo qaar ayuu ka soo qaadana. website-ka ugu horeeyo waa midkan aan ku jirno oo aan hore cashar ugu soo sharaxnay, cashar ka mid ah casharadii ku soo baxay koorskeena. waxaa loo yaqaanaa website-ka loo yaqaano Freepik. Freepik waxa uu ka caawinayaa website-kan waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay inuu file Photoshop ah ku siiyo, inuu file Illustrator ku siiyo, image inuu ku siiyo, icon inaad ka hesho. qaabka loo isticmaalo qaybta kore ee Google-ka ayaad ku qoraysaa www.freepik.com. kadib wejigan ayuu ku soo bandhigayaa waxa u baahnaato ayaad halkan ka raadinaysaa. haddaa u baahan tahay oo kale waxa u baahnaatay oo kale inaad hesho ama aad soo raadsato waxa loo yaqaano certificate kadib okay leh waxa uu ku siinayaa certificate design-keeda diyaarsan yahay sida halkan ka muuqato hoose. waxaad arkaysaan designo kala duwan oo certificate-ka ah ama shahaado ku saabsan. haddaad rabto waa download garaysanaysaa ayagoo free ayaad helaysaa oo design-ka ayaad u baahnaato. haddaad design macquul halkan ka hesho download dhaho, kadib kalarada badbedelo iyo qoraalada meesha ku jira. haddii aad rabto inaad hesho halkan ayaad ku dhufanaysaa free, micnaheedu waxay tahay free c. premium haddaad doorato waa lacag. halkan waxaa ka dooranaysaa haddaad rabto vector micnaheedu yahay Illustrator ahaan igu sii faylkaas, halkan aad dooranaysaa. haddaad rabto inaad ku hesho as photo sawir caadi haddaad rabto inaad ku hesho waxaad dooranaysaa photo. haddaad rabto PSD oo micnaheedu yahay Photoshop, haddaad ku heshana Photoshop ayaad jeeg saaranaysaa. haddaad rabto icon inaad heshana icon ayaad jeeg saaraysaa. sida kadib shayga kuu soo baxo kale loo dooro kale vector markaad doorato kuwan jeeg aan ka qaadno qaybta hoose taga certificate-kan markaa u baahnaaday. certificate-kan click ku dheh. okay markaad dhahdo kadib waxaad doorataa download markaad dhahdo wax yar hoos u soco waxaa ku dhufataa dale download-kan kale free download markaa ku dhufato wuxuu bilaabayaa automatically inuu download bilaabo. downloadku waa noo socda. halkan ayaad ka tirsanaysaa double click haddaad dhahdo wuxuu kuu furayaa Illustrator ama Photoshop midka u baahnaatay. website-kan waa mid aad u muhiimsan. website-ka labaad aan rabo inaan idin baro waa website-ka loo yaqaano website-ka loo yaqaano Mockup 3. Mockup 3 waa website laga helo mock-up-yada. halkan sida ka muuqato able mock-ups haddaa u baahantahay iPhone, iPad, haddaa u baahnaato laptop sidoo kale. halkaana branding mock-ups ay ka mid tahay business card, book, brochure, envelope, flyer, logo, magazine, stationery iyo notebook. halkaana sidoo kale waxaa ku jiro outdoor mock-ups waxa loo yaqaano oo ay ka mid yihiin frame oo kale, banner oo kale, calendar oo kale inaad u hesho. halkaana product mock-up oo kale bags iyo bottle iyo waxyaabahaas ayaad ka helaysaa. marka midka u baahnaato oo kale branding haddaa u baahnaato envelope oo kale envelope ku dhufo. envelope markaa ku dhufato hoos u soco. envelope-ka aad u baahnaato mock-up inaad geliso ayaad halkan ka raadinaysaa. design-kii ku macquulsan oo ku envelope-yada ayaad click ku siinaysaa. kasoo qaado kale kan markaa click ku siiso kale markuu kuu soo furo waa kan hoos waxaa ku qoran free download ku dhufo uu ku soo degayaa. kadib mock-up-kaada aad rabto ku samayso. halkan website-ka saddexaad aan rabo idin baro waa website-ka loo yaqaano Pixlr. website-ka Pixlr halka ku qoran tahay
waxaa laga helaa image quality sawiro qualitykooda high uu yahay haddaa u baahnaato google-ka haddaa kasoo degso waxaa laga yaabaa inuusan high quality ahayn laakiin pixels image-ka aad kasoo degsato kale waa image laisku hubo kale haddaa u baahnaato kale food oo kale qora kadib okay ku dhaca okay marku dhaca waxaa iisoo baxayo cunto wax ku saabsan qualitygoodan uu yahay high sida ku muuqato sawiro aad u qurxoon oo high quality ayuu kusoo bandhigayaa website-ka loo yaqaano pixels marka image-ka aad ka hesho aad u baahnaato ayaad dooranaysaa kanoo kale u baahnaaneyd ka soo qaad kadib halkan ayaad ku filaysaa free download kadib wuu kusoo degayaa image kadib meesha u baahnaato illustrator-ka ayaad geysanaysaa okay website-ka afraad ee ugu dambeeya maanta inaan rabo inaan baro waa website loo yaqaano Brochez.com waa website ka caawinaya fontiga Arabic marka qorayso kale ama fontiyada kale marka qorayso kale siba waliba Arabic ayaa si fiican loo isticmaalaa fonti Arabic marka isticmaalayso ayaad halkan ka badbedelaysaa oo far qurxoon oo high quality oo ama fontiga qaabka u qormayso kale ayaad halkan ka degsan kartaa si loo isticmaalo waxaad doorataa Arabic font markaad doorato kadib halkan waxaad ka arkaysaa inay Arabic farar kala duwan ay halkan ku jiraan si aad u tijaabiso qoraalka aad u baahnaato halkan ku qor ka soo qaado kana ka soo qaado kayfa xaalka kale ay qoran kadib set dheh soo ku tuso qaabka uu noqonayo kayfa xaalka faraha ka hooseeyo kale oo soo soco kayfa xaalka fartaan oo kale hadda ka hesho kale halkaas ayaad ku dhufanaysaa taxmiil ay ku qoran tahay download soco kayfa xaalka sidoo kale farta aad ka hesho ayaad qaadan kartaa oo aad taxmiil marka ku dhufato waa download garay page 2 kala gudub ay hoos soco faraha waa kala duwan marka fartii ku macquulsan ayaa dooranaysaa aad ka hesho page 1 ilaa waa wada kartaa ilaa inta page ugu dambaysa ayuu ku geynayaa kadib marka farta aad ka hesho kadib ku dhufo taxmiil kadib download markuu ku soo dego qaabka fontiyada window loogu soo group computer waa taqaanaa cashar kale ayaan ku sharxaynaa qaabka computerka loogu shubo fontiga marka maanta waxaan rabaa inaan idin baro afartan website-kan oo ah fontiga Arabiga si loo saxo website-ka labaad oo ah Freepik icono Freepik waxa waaye waa website laga heli karo file ka kooban Photoshop Illustrator image iyo icon website-kan free mockups 3 mockups waxaa ka heleysaa mockup-yada free-ga website-kan loo yaqaano pixels waxaa ka heleysaa high quality image marka maanta casharkeena intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa aad waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh